لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، weli waxaan ku dhex jirnaa suuratu albaqara, khaasatan aayaadkii looga hadlahayay reer bani israa'iil ayaan dhexda uga jirnay. waxaa noogu soo dambaysay reer bani israa'iil in ballan lagu qaaday korkoodana jabal iyo duur la yeelay. ilaahayna uu yidhi qaata waxa laydin siinayo xoog iyo firfircooni ku qaata. waxay dhaheen waan maqalnay waana caasinay. quluubtoodiisay dibiga u jeclaadeen baa waxaa laga dhigay wax la cabsiiyey oo kale. wa ushribuu fii quluubihim alcajb, waa kufrigii ay kufriyeen sababtiisa. waxa iimaankiina idin farayaa baas leh uu dhahay ila subxaana wa tacaala. ee qul waxaad ku dhahdaa rasuulkii ilaahayow, in kaanat hadday idin ahaatay lakum adinka addaaru alaakhira, daarta dambe, addaaru alaakhiratu, daarta dambe ee aakhiro, cinda allaahi alla agtiisa, khaalisatan mid khaalis iyo saafi idinka idin ah, min duuni innaasi dadka sokadooda, fatamannawu lmawta, geeri jeclaysta, geeri tamaniya, in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina, kuwa run sheegaya. haddaad saadiqiin run sheegaya aad tihiin, bal geeri qalbiga gashta. waxay dhihi jireen annagu ilmo allaanu nahay, shacab alloo mukhtaaroo la doortayna waan nahay, jannana geli maayaan ilaa yahuud iyo nasaar maahane. xaaladdaasoo dhan ayagoo sheeganayay ayaa ilaahay wuxuu tilmaamayaa subxaana wa tacaala, qofku mar allaala marka ilaahay agtiisa waxa yaalaa khaalis ay u tahou og yahay inuu asaga qayb ku leeyahay, wuxuu aad u jeclaystaa la kulanka alle subxaana wa tacaala. saa darteed baa ayagu waxay aad u necbanaayeen inay dhintaan, waxay aad u jeclaayeen xayaatada iyo nolosha. taa laba isqabata markaa ma aha. tii baa loo tilmaamayaa, qul dheh in kaanat hadday idin ahaatay, in kaanat hadday idin tahay lakum adinka ay ahaatay addaaru alaakhiratu, daarta dambee aakhiro, cinda allaahi alla agtiisa, khaalisatan mid khaas idinka idin ah, mid idin baraxla oo khaas idinka idin ah, min duuni innaasi dadka sokadooda oo aad sheegateen idinka keligiin inaad janno markaa gelaysaan, fatamannawu lmawta, geeri tamaniya marka jeclaysta dhimasho buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala, in kuntum saadiqiina, kuwa run sheegaya haddii aad tihiin. haddaad tihiin kuwa saadiqiin ah oo hadalka ay ku hadlayaan ay markaa runtood tahay. tamaniya, geeri la tamaniyo macnaheeda loolama jeedo inay ayagu dhimashadu qofku iska tamaniyo. waa axaadiista qayb ka mid ah waxay tilmaamayaan axadkiin yuusan tamaninin geeri dhib adduun ku dhacay sababtii. haddii cimri dheer la siiyo muxsin uu yahay, waxaa dhici kartaa inuu wanaag sii siyaadsado. haddii uu yahay qof xumaan ku socdana, waxaa suuragala inuu ilaahay tooba intuu waafajiyo, ilaahay istikfaar weydiisto, ka bacdina tubta iyo khayrka wanaag uu ku soo noqdo. laakiin sideeda waxaa dhici karta in loola jeeda aayada noo imaan doonto looga hadli doono is-inkaaridii. faqul tacaalow nadcu abnaa'ana wa abnaa'akum wa nisaa'ana wa nisaa'akum wa anfusanaa wa anfusakum uma nabtahil fanajcal lacnat allah cala alkaadibiin. taa way ka diideenoo way samayn waayeen. sidaa darteed dad saas u dhuumanaya oo ishabaartankii iyo in geeri laysku habaaro ka cabsanaya, say daarta alle dadka sukadoodu khaas ugu noqonaysaa xaggooda. macnaha waa ma jirto. qul dheh in kaanat hadday ahaatay lakum adinka addaaru alaakhiratu, daartii dambee aakhira, cinda allaahi alla agtiisa, khaalisatan mid khaas idinka idin ah, khaas iyo saafi mid min duuni innaasi dadka sukadooda aysan idinla qaybsanaynin,
fatamannawu lmawta geeri tamaniya marka jeclaysta in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa markaa run sheegaya kuwa saadiqiina haddii aad tihiin taa jeclaysta walan yatamannawhu ma jeclaanayaan marka abadan weligood geeri ma tamaninayaan mana jeclaysanayaan walan yatamannawhu ma tamaninayaan ma jeclaanayaan abadan weligood geeri waana bimaa qadamat wixii ay horumarisay sababteeda ay yihiin gacmahooda wixii xumaan ah oo ay gacmahooda ku kasbadeen tii bay markaa og yihiin taas manawhu ma jeclaanayaan ma jeclaysanayaan oo ma tamaninayaan geerida abadan weligood waana bimaa qadamat wixii ay horumarisay aydiihim gacmahooda wallaahu ilaahayna caliimun alla ku cilmi badan waaye biaalimiina aalimiinta dulmi falayaasha kuwa gardarsigii xadgudubka ku socda mushrikiinta ku dulmi fala tawxiidka waxaasoo dhan ilaahay wuu ku cilmi badan yahay waa og yahay hadduu og yahay waxaa meesha ka imaanaya jazahoodii abaalkooda inuu ilaahay siiye subxaana wa tacaala marka dadaanba tamaninaynin geeri waayo wixii ay gacmahoodu kasbatay oo xumaan ah oo diin la dagaalan ah oo xaq nacayb ah oo rasul dilid ah iyo waxaasoo dhan bay markaa og yihiin waa bimaa qadamat aydiihim wallaahu caliimun ilaahayna allah caliim ku ahoo ku cilmi badan buu ahaaday biaalimiina aalimiinta walatajidannahum waad helaysaa kuwaa buu yidhi ilaahay walatajidanna waad heli hum ayagu waa yuhuuddee axrasa annaasi dadka kuwa ugu dadaalka badan inay yihiin calaa xayaati nolosha korkeeda in la noolaado oo xayaatada korkeeda lagu sugnaado ummadda kuwa ugu daran inay yihiin ayaad helaysaa buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala iska daa inay tamaniyaan la kulanka alleh iyo geeriye waxaadba helaysaa dadka oo dhan cidda ugu dadaalka badan in lasii noolaado adduunka la joogo inay yuhuud tahay walatajidanna waad heli hum ayagu rasuulkii allah walatajidannahum waxaad helaysaa axrasa annaasi dadka kuwa ugu dadaalka badan inay yihiin calaa xayaati nolosha korkeeda wa min aladiina kuwiina waa uga dadaal badan yihiin weliba ashrakuu shariig yeelay mushrikiintan aad u jeeda asnaam caabuditaanka ku socda bacfiga qiyaamaha inkirsan iyo ayaga marka la fiiriyo xayaatada waxaa aad u jecel waa ayaga xataa kuwa mushrikiintae rabbi u shariig yeelay yay ka dadaal badan yihiin kaga jecel badan yihiin in la noolaado wa min aladiina kuwiina waa uga dadaal badan yihiin xaggooda ashrakuu shariig yeelay yawaddu wuxuu jecel yahay axaduhum midkood low yucammaru in la cimri siiyo alfa sanatin kun sano in la cimri siiyo ayuu axadkood jecel yahay wamaa huwa mana aha kaa bimusaxsixihi mid ka fogaynahaya cimrisiintaas min alcadaabi cadaabka xaggiisa an yucammara xataa haddii la cimri siiyo oo la camiro oo adduunka lagu sii joojiyo 1,000 sano ka fogayn maysa cadaabka mar un waa dhammaanaysaa oo cadaabkii waa u imaanayaa haddii la cimri siiyo xataa 1,000 sano ma ka fogaynahayo cadaabka wallaahu ilaahayna basiirun alla arkaya waaye bimaa yacmaluuna waxay camal qabanayaan waxay samaynayaan buu ilaahay arkayaa subxaana wa tacaala aragtidaa ilaahay uu arkaya camalkay qabanayaan waxaa meesha ka ratibmaya si cadaalad ah in loo jaasiyo wixii ay mutaysteen in la siiyo wixii abaalkoodaa inuu ilaahay mariyo ilan ilaahayna wuuna ku cilmi badan yahay waana u jeedaa waxyaabaha ay markaas samaynayaan walatajidannahum waad helaysaa rasuulkii ilaahayow kuwaasi axrasa annaasi inay yihiin dadka kuwa ugu dadaalka badan calaa xayaatin nolosha korkeeda wa min aladiina kuwii xaggooda xataa way ka dadaal badan yihiin oo waxay uga dadaal badan yihiin inay sii noolaadaan wa min aladiina kuwii xaggooda ashrakuu shariig yeelay xataa way uga dadaal badan yihiin yawaddu axaduhum midkood wuxuu jecel yahay uu jeclaysanayaa an yucammaru in la cimri siiyo
mid kastoo ayaga ka mid ah wuxuu jeclaysanayaa in cimri la siiyo. yawaddu axaduhum low yucammaru in la cimri siin lahaa 1000 sanatin 1000 sano. wamaa huwa mana aha bimusaxsixihi kaa jeclaaday in 1000 sano la cimri siiya mid ka fogaynaya min alcadaabi cadaabka an yucammara xataa haddii la cimri siiyo. haddii la cimri siiyo xataa 1000 sano cadaabka ka durjin maayo. wallaahu ilaahayna basiirun alla basiir ahoo arkahaya waayo bimaa yacmaluuna waxay camal qabanayaan. qul waxaad tidhaahdaa rasuulkii allah man kaana qofkii u ahaaday caduwan cadow lijibriila jibriil qofka jibriil cadow u ah wax faa'iide ah iyo qiimo ah ee uu ka keenayo cadaawatinimada uu jibriil la cadaawooday ma jiro. ama caradaada la dhima faa'iide iyo qiimo ma laha. yuhuudda intay u yimaadeen rasuulku waxay dhaheen dhowr su'aal baan ku weydiinaynaa. su'aalo dhowra markay weydiiyeen uu uga jawaabay ayay dhaheen nebi kasta saaxiib buu lahaa. qof baa u imaan jiray ay ergadii waxyaabaha kale u keeni jiree yaa adiga xiriir kula leh yaa kuu keena waxdiga. kolkaasuu yidhi jibriil. ow haddii jibriil uu yahay taasi cadowgeena waayaday dhaheen ma ku rumaynayno. hadduu miikaa'iil ahaan lahaa waa suuragal inaan ku rumayno. jibriil waa cadowgeeni. miikaa'iil baa nooga fiicanoo raxmad iyo naxariis iyo roob qaabilsan risqi iyo wax dhulka laga soo bixiyo ah. amaa jibriil soo ma aha. hadduu mid kale ahaan lahaa ama miikaa'iil ahaan lahaa waa ku raaci lahayn. laakiin jibriil waa cadowgeena mana ku rumaynayno. hadduuba mar jibriil xiriiriyahaaga markaa yahay ama saaxiibkaa yahay. man kaana baa soo degtay. qul waxaad ku dhacdaa rasuulkii allah man kaana ruuxii caduwan cadow u ahaaday lijibriila jibriil cadaawnimadiisa iyo ciilkiisa ha la dhinto. wax uu ka qaadi karaayin ma jiro. cadaawanimada uu jibriil la cadaawoodo col la noqdayna wax faa'iide ah iyo qiimow ku helaayo markaa male. waayo fa innahu jibriil ninka malagga jibriil lagu magacaabo oo ay leeyihiin cadowgeennii waaye. fa innahu asagu nazalahu waa soo dejiyey. jibriil wuxuu soo dejiyey nazalahu calaa qalbigaaga ayuu waxyigii ku soo dejiyey. ilaahay baa u soo waxyoodoo u soo dhiibay. fa innahu jibriil nazalahu waa kii dejiyey calaa qalbigaaga risaaladii ilaahay u soo dhiibay. waayo biidni illaahi weliba ilaahay idinkii buu markaa ku soo dejiyey musadiqan xaalo uu rumaynahaya limaa bayna yadayhi wixii hortiisa ahaa. wahudan hanuun xaal uu yahay. wa bushraa bishaarana lilmu'miniina mu'miniinta uu u yahay. waxyaabaha uu soo dejiyey ilaahay idinkiisuu ku soo dejiyey. waxyiga iyo qur'aanka iyo diinka alle idinkiisuu ku soo dejiyey. wuxuu rumaynayaa wixii ka horeeyey. wuxuu rumaynayaa uu tilmaamayaa uu musadiq u yahay kutubihii ka horeeyey oo ilaahay soo dejin jiray subxaana wa tacaala. waa hanuun waa bishaaro dadka mu'miniinta markaa u ah. qul leh man kaana ruuxii caduwan cadow u ahaaday ama u ah lijibriila wuxuu ka qaadaya cadaawatinimada amay u faa'iidaynaysa ma jiro. waayo fa innahu jibriil fa innahu asagu nazalahu waa dejiyey calaa qalbigaaga ayuu waxyigii iyo risaaladii alleh ku soo dejiyey weliba biidni illaahi ilaahay idinkii subxaana wa tacaala. fasax alle isagoo wataa yuu qalbigaaga ilaahay ugu talagalay inuu waxyiga iyo qur'aanka ku soo dejiyo kaasoo musadiqan rumaynaya limaa bayna yadayhi wixii hortiisa ahaa. wahudan hanuun xaal uu yahay. wa bushraa iyo bishaaraba lilmu'miniina mu'miniinta. man kaana ruuxii u ahaada caduwan cadow lilaahi ilaahay iyo wa malaa'ikatihi malaa'igtiisa wa rusulihi iyo rusushiisa wa jibriil iyo wa miikaa'iilba. fa ina allaha ilaahay cadow buu u yahay lilkaafiriina kaafiriinta. ilaahay gaalada aad buu u necb yahay subxaana wa tacaala. cadow buu markaa u yahay. sidaa darteed ee qof kasta oo cadow jibriil u ah
ilaahay u ahaaday subxaanahu watacaala malaa'igtiisa u ah rusushiisii jibriil iyo miikaa'iil ha ogaadeena wax ay ka qaadayaan inuusan jirin waayo ilaahay baaba cadow kaafiriinta u ah oo neceb oo agtiisa qiimo iyo wanaag aysan ka gaaraynin man kaana kii ahaaday caduwan cadow lilaahi ilaahay u ahaaday wa malaa'ikatihi malaa'igtiisa wa rusulihi iyo rusushiisa ama rusul bani aadama ha ahaadaana ama rusul malaa'ig ah wa jibriila wa miikaala jibriil iyo miikaa'iil cadow u ah waxay cadaabanimadooday anfacaysaaye ma jirto waxna kama qaadi karaan fa ina allaha ilaahay caduwun ayuu lilkaafiriina kaafiriinta u yahay walaqad anzalnaa waanu soo dejinay ilayka xaggaaga aayaatin aayaad baanu ku soo dejinay aayaad ayaan xaggaaga ku soo dejinay aayaadkaasoo bayinaatin cadcad ah aayaad ayaan ku soo dejinay bayinaad ah wamaa yakfuru mana ku gaaloobo kuma kufriyo bihaa aayaadka ila alfaasiquuna faasiqiinta maahan qolooyinka falaagada ah ee diinta alla ku falaagoobo dhinac mara xaqa iyo taacada alla aan ogolayn faasiqiinta ah meehee cid kaloo aayaadkaa ku kufriya oo inkira oo beeniya oo nacoo diidaa ma jira buu ilah leeyahy subxaanahu watacaala walaqad anzalnaa waan soo dejinay oo inaan soo dejinay baa xaqiiqo ah ilayka xaggaaga aayaatin bayinaatin aayaad bayinaad ah baan ku soo dejinay aayaad cadcad ah wax cadcadeeya ummadda wax kasta u tusaaleeya khayrka iyo wanaagga tusiya kaasaan xaggaaga ku soo dejinay ilayka aayaatin bayinaat wamaa yakfuru bihaa mana ku kufriyo oo kuma gaaloobo bihaa aayaadka ila alfaasiquun faasiqiinta maahan awa kullamaa caahaduu mar kasta ama ma mar walba caahaduu oo lala ballamo cahdan ballan nabadahu fariiqun ma koox baa burisaa ma waxaa tuurayoo burinaya fariiqun koox oo minhum ayay ka mid ah bal akharuhum badankoodu laa yu'minuuna maba rumaynayaan buu dhaha ilah subxaanahu watacaala mar walboo lala ballamo mar walboo cahdi lala dhigto koox un baa burinaysaa qoladaa yuhuudda waa dad aad iyo aad cuhuudda uga baxda ballan oofinta ku yar ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu in badan noo kashifayaa noona caddaynayaa dhaqanadooda ee sida ay markaa yihiin nebiga ayay la soo degeen magaalada madiina sidaa darteed baa ballanno badan lala galay reer bani qorayda hadday ahaan lahaayeen way uga baxeen ballantii waqtigii axzaab waan la soconaa reer bani qaynuuqaac saasoo kaleoo qoladii ugu horraysay ballan furtay bay ahaayeenba reer bani nadiira wayba ka daran yihiinoo xataa dilka nebigay isku dayeen mar kasta oo ballan lala galo oo lala ballamo koox ayay ka mida tuuraysa buu dhaha ilah subxaanahu watacaala awa kullamaa caahaduu mar walba amase ma mar walba oo caahaduu lala balmo nabadahu ma waxaa tuurayo mtaqaana burinaya ballantii fariiqun koox oo minhum ayay ka mid ah bal akharuhum badankoodu laa yu'minuuna kuwa rumaynahaya markaa ma ah walamaa jaa'ahum markii uu u yimid rasuul oo min cindi illaahi ilaahay agtiisa ka ahaaday musadiqun rumaynahaya limaa macahum wixii micigooda ahaaday nabada fariiqun nabada way tuureen oo way buriyeen fariiqun koox oo min aladiina kuwii ka mid ah uutul kitaaba kitaabka la siiyey kitaab allaahi kitaabkii allah waxay ka tuureen waraa'a duhuurihim dhabarradooda gadaashiisa ka'annahum sidii ayagoo laa yaclamuuna aan markaa ogeyn sidii ayagoon ogeyn oo kaley u dhaqmeen sidii ayagoon ogeyn oo kaley kitaabkii u tuureen sidii ayagoon ogeyn oo kaley kitaabkii u isticmaaleen mar walba buu ilaah leeyahy subxaana wa tacaala oo qolooyinkan lala ballamo ballantii way tuurayaan ballantii ma fulinayaan ballantii way burinayaan badankoodu waa kuwo aan iimaan lahayn walamaa jaa'ahum markuu u yimid rasuulkaasoo min cindi illaahi ilaahay agtiisa ka ahaadoo laga soo diray rasuulkaasoo musadiqun rumaynahaya limaa macahum wixii ayaga micigooda ahaa wixii ayagu ay haysteenay ku dhaqmayeenna
micigooda ahaa wax kale uusan wadanin tii buu ayidaa uu adkaynayaa uu rumaynayaa musadiqun limaa macahum nabada fariiqun nabada way tuureen buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala fariiqun koox oo min aladiina kuwii uutuu lkitaaba kitaabka la siiye ka mid ah kitaab allaahi ilaahay kitaabkiisiibaa waxay ka tuureen waraa'a duhuurihim dhabarradooda gadaashiisa kaannahum laa yaclamuuna sidii ayagoon ogayn oo kaley u isticmaaleenay u dhaqmeen kitaabkii saasay u tuureen ballantii ayay fuliyeen xaqii taacadii alla raaca layidhi raaci waayeen diintii allay ku dhaqmi waayeen saasay markaa noqdeen idan ballanna way tuuraan kitaabkii allan dhabarkooda gadaashiisay ka tuureen waa bulsho dhib badan waa ummad aad iyo aad u cajiib badan waa qolo ilaahay tusaalaadka uu ka bixinaya xaqiiq ahaan si fiican markaa loo dareemayo loo arkaayo idan waa intaa la ogaadaayo la dareemaa ilaahayna subxaana wa tacaala dhabnimo loo caabudaa xaqa iyo wanaaggana lagu socdaa layskana ilaaliyaa wax allaala wixii dadkaasi ay ku sifaysnaayeen wixii ay ku sifaysnaayeenay ahaayeen kuwa ku socda in markaa layska ogaado walamaa goortii jaa'ahum uu u yimid rasuul oo min cindi illaahi ilaahay agtiisa laga soo diray rasuulkaasoo musadiqun rumaynaya limaa macahum wixii micigooda ahaaday wixii ayagu ay haysteen nabada fariiqun koox baa tuurtay oo min aladiina kuwii ka mid ah uutul kitaaba kitaabka la siiyey kitaab allaahi ilaahay kitaabkiisii bay waraa'a duhuurihim dhabarradooda gadaashiisii ka tuureen kaannahum sidii laa yaclamuuna ayagoon ogeyn oo kale qul waxaad dhahdaa rasuulkii ilaahayo in kaanat ay idiin ahaatay waxa lala hadlayo waa yuhuuda in kaanat dambee aakhiro iyo jannadii cinda allaahi alla agtiisa khaalisatan mid khaalis idinkaga ahoo tamannabu lmawta geeri tamaniya oo geeri jeclaysta in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegahaya walan yatamii qadamad ay horumarsatay aydiihim gacmahooda wallaahu ilaahayna caliimun alla ku cilmi badan buu ahaaday biaalimiina aalimiinta walatajidannahum waad heliin calaa xayaati nolosha korkeeda wa min aladiina kuwii xaggooda xataa way ka dadaal badan yihiin inay sii noolaadaan ashrakuu shariig yeelay yawaddu wuxuu jecel yahay axaduhum axadkood wuxuu jecel yahay low yucammaru in la cimri siiyo 1000 sanatin 1000 sano in la cimri siiyo ayuu axadkood jecel yahay wamaa huwa mana aha midkaasi bimusaxsixihi mid ka fogaynahaya min alcadaabi cadaabka xaggiisa an yucammara xataa haddii la cimri siiyo 1000 sano wallaahu ilaahayna basiirun alla arkaya buu ahaaday bimaa yacmaluuna waxay camal qabanayaan ee qul waxaad dhahdaa rasuulkii ilaahay man ruuxii kaana u ahaaday caduwan cadow lijibriila jibriil qofkii cadow u ah wax uu ka qaadi karo ama ay u anficayso cadaawanimadaa ma jirto waayo fa innahu jibriil nazalahu waa soo dejiyey calaa qalbika qalbigaaga ayuu waxyigii iyo risaaladii ilaahay ku soo dejiyey biidni illaahi ilaahay idinkii subxaanahu wa tacaala musadiqan xaal uu rumaynahaya limaa bayna yadayhi wixii hortiisa ahaaday wahudan hanuun xaal uu yahay iyo wa bushraa bishaarana lilmu'miniina mu'miniinta markaa u ah man ruuxii kaana caduwan cadow u ahaaday lilaahi ilaahay iyo wa malaa'ikatihi malaa'igtiisiiyo wa rusulihi rusushiisii wa jibriil iyo wa miikaala malaga miikaa'iil la yidhaahdo fa ina allaha ilaahay cadow buu u yahay lilkaafiriina kaafiriinta walaqad anzalnaa waan soo dejinay ilayka xaggaagaan ku soo dejinay rasuulkii allow aayaatin aayaad bayinaatin ee cadcad wamaa yakfuru bihaa mana ku gaaloobo oo kuma kufriya aayaadkaas ila alfaasiquuna faasiqiinta maahan awa kullama ma mar kastoo caahaduu lala ballamo cahdan ballan nabada fariiqun nadama
burinaya fariiqun koox ma kooxaad tuuraysa buu dhaha ilaah subxaana wa tacaala ma waxaa tuuraya ballantaa fariiqun koox oo minhum ayay ka mid ah bal akharuhum jaa'ahum uu u yimid rasuul markuu u yimid rasuulkaasoo min cindi illaahi ilaahay agtiisa ka ahaaday musaddiqun rumaynahaya limaa macahum baa tuurta buu dhaha ilaah subxaana wa tacaala nabada way tuureen fariiqun koox oo fariiqun ay ka tuureen waraa'a duhuurihim dhabaradooda gadaal bay ka tuureen ka'annahum laa yaclamuuna sidii ayagoon ogeyn oo kale ayay kitaabkii markaa waxay ka tuureen dhabaradooda gadaashiisa hadday kitaabkii naceen oy ku dhaqmi waayeen oy ku camalfali waayeen dhabaradooda gadaashiisana ay ka tuureen maxay raaceen marka wixii ay raaceen baana loo sheegi doonaa waattabacuu maa tatlu shayaatiinu calaa mulki sulaymaana wabiاllaahi tawfiiq wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.